Halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan. Ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Qodobada warkaan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo xanibaad saartay Bangiga Dhexe ee Ruushka. Dowladda Mareykanka ayaa mamnuucday Bangiga Dhexe ee Ruushka. Waaxda Hantidhawrka Guud ee Mareykanka ayaa sheegtay in la mamnuucay lana xadiday iyo arrimaha xisaabaadka hadday noqoto isu dirista lacagaha, qaadashada iyo gabi ahaanba in la mamnuucay xiriir in lala sameeyo hadday noqoto shaqaalaha iyo Bangiga Dhexe ee Ruushka iyo nidaamka uu shaqeeyo oo dhan. Tallaabadan ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay weerar Ruushka oo Ukraine uu ku qaaday, taasoo looga soo horjeedo. Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in tani ciqaab ku tahay Bangiga Dhexe ee Ruushka, taasoo xanibaad iyo mamnuuc la isugu daray hantida bangiga iyo inaysan wax dhaqdhaqaaq ah sameynin. Waxaa xusid mudan kal hore qaar ka mid ah bangiyada Ruushka in laga saaray nidaamka Swift-ga, taasoo go'aankaasi ay gaareen Mareykanka iyo Midowga Yurub.